السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان داوداشا قيمها يا قيالة ku xiran page ka weyn Jiwal TV. Muuqaalka toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa nin fanaanimada qaab kale u soo galay. Maxay tahay qaabka u soo galay? Maxay tahay waxyaalaha uu kaga duwan yahay aan iraado fanaanada kale? Waxaan idin soo qaadan doonaa fanaanadan ama fanaanadii hore waxa uu mid kastaaba ku dayan jiray fanaankii ka horeeyay qaabka uu sameyn jiray oo waxa uu sameyn jiray inuu isku dayo inuu booskii fanaankaasi uu buuxin lahaa uu buuxiyo. hase ahaatee fanaanka in la yiraahdo mursal faaladegan ma yahay qof isaguna ku dayanaya fanaaniintii hore sida xasan aadan samatar أما محمد سليمان تبع أبو ترسي وكوني مرة اشتكي هيا بدوانك ناري تليقي الدمرينايا أبو ترسي وكوني مرة اشتكي هيا بدوانك ناري تليقي الدمرينايا أما كدايانيا فنانين كلو aad u badan fanaaniinta dumarka haddaan u soo noqdo fanaanad kasta oo dumar ah waxay ku ahmidaa fanaanadii ka horeysay qaabkeegii kale in ay noqoto ama ay codkeegii oo kale ay la timaado bulshada horteeda sida khadradda hercige أما سينب عقه faaladegan waxa uu toddobaadkan soo saari doonaa hees uu ku magacaabay hooyooyinka talo maxay noqon doontaa maxaa sad ka filaysaa ninkani inkasta uu fan kaste ama hees kasta uu soo qaadayo aad ka fahmaysid inaanu ahayn fan ama fanaannimo oo ay tahay wada sheekaysi keliya maxaad odhan doontaa heestan cusub uu leeyahay waan soo wadaa wax ayay ka bedeli doontaa heesihiisii hore ma wuxuu u soo qaadi doonaa sidii kuwii caadiyanka ahaa uu u soo qaadi jiray ee sida sheekada oo kale ah mise wuxuu u soo qaadi doonaa si professional ah aniga sida aan isleeyahay ray ahaantayda waxa uu soo qaadi doonaa hooyo markii aan yaraa waa adigii koriyey markii aan yaraa waa anigii xaggaa maray ciyaalku marka ay nacnacayga qaataan waa adigii ii soo gadi jiray mid cusub sida aan anigu raygayga ama fikirkayga aan aaminsanahay heesta uu leeyahay waan soo wadaa hase ahaatee mar waraysi laga qaaday ayaa waxa uu sheegay in uu fanaaniinta ka mid ah uu ku dayan rabo bal ila daawada fanaanka uu doonayo in uu ku daydo iyo isaga oo leh fanaanka ayaan rabaa in aan ku daydo bal daawasho wanaagsan ma jiraan fanaaniin matalan marka aad fanaan rabto inaad noqoto dadku ku bartaan qof kasta qof kale ku dayda fanaaniintii hore dad aad xiisayn jirtay oo heesahooga aad ka heli jirto markaad yarad ku luuqayn jirtay ma jiraan way jiraan ha xaqiiq way taa waxaa ka mid ah fanaaniin badan sida boqorka codka tabeec jobba waa badnaayeen aad u badnaayeen waa tahay waxa uu yidhi waxaan ku dayanayaa fanaanka caanka ah الله هون حريسته محمد سليمان تبع ما يهاي مد عاد أوران كره صونين كني
wuu buuxin doonaa booskii maxamed saleebaan su-aashu hadday taa tahay aniga ahaanteeda waxay ila tahay waa maya waayo fanaan kastaaba waxa uu leeyahay qaab uu u qaado heesaha ama midhaha qaab loogu tiriyo uu ugu luuqeeyo ninkani inkasta uu sheegtay hees kastaba ina uu isagu sameeyo uuna alifo ma kula tahay ina uu sidaa kusii wadi doono fanka soomaaliyeed ma kula tahay bulshada soomaaliyeed ee adduunka ku xeeran ina ayaguna taageeri doonaan ama ay daawan doonaan dad badan ayaa daawada heesihiisa maxayse u daawadaan maxayse ka faa'iidaan maadaama ayna murti heesihiisu ku dhisnayn dad badan ayaa isweydiinaya oo leh fanaankani maxaa uu ku heesayaa ma af caadiya mise waa af wada sheekaysi caadi ah waxa aan doonayaa inaan idiin kala baxo bal heese uu leeyahay iyo hees aan isku barbar dhigo uu maxamed saleebaan tubeece ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye uu qaadayo daawasho wanaagsan deg deg qalbigaan iska deg 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 qaaligaan iska deg dooqaaga qaaliga anigaa u qalmee anigaa u qalmee dooqaaga qaaliga aqayaar u hibee aqayaar u hibee waa tahay markaan intaa kaga nimaadno fanaankani heestan uu qaadayo sida aad ila aragteen u malayn maayo ina uu noqon doono meelaha ay degto dhammaan soomaalidu gobollada waqooyiga ama gobollada koonfurta ama meel kasta oo soomaali uu degan yahay waa tahay bal maxamed saleebaan siduu u qaadi jiray ama siduu ugu dayan karayaa maxamed saleebaan inuu heesihiisii oo kale uu qaado fadlan ila daawo maxamed saleebaan tubeece ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye hees uu isagu leeyahay نصدحوي نروري وعداها تبدبوي يدا بديتو وعداها نعب بيري نصدحوي نروري وعداها تبدبوي markaan intaa kaga nimaadno tal ahaan marka aan u soo jeediyo aniga fanaanka la yidhaahdo mursafaala degan waxaan odhan lahaa caalamka horumar ayaa la gaadhay ma rabtaa in aad noqotid fanaan ay soomaalidu xiisayso inkasta oonad lahayn cod haddana waxaa la isticmaalaa caalamkan aan joogno migsaro kuu qurxin karaya codka oonad noqon karaysid fanaan ay dadku jecel yihiin waxaa jira dad badan oo istuudiyayaal haysta oo u soo duuba muuqaalada si brofeshonaala waxaan kugula talin lahaa inaad la xidhiidhid kuwa oo aad ku dhahdid iga caawiya sidii aan u soo saari lahaa muuqaallo taya leh maadaama muuqaalka aad soo hor saarto badanka uu ka kooban yahay muuqaal lagu duubay mobil sida aan filayo maaha qof kaa duubaya ee adiga laftirkaaga ayaa iska duuba sida marka muuqaalku uu bilaabanayo aan ku wada aragno marka waxaan ku odhan lahaa la xidhiidh istuudiyo badan oo soo saara brofeshonaala aan idhaahdo ku yaalla dunida daafaheega sida liibaan jaamac oo ku nool waddanka maraykanka oo isagu soo saara heesooyin ama muuqaallo aad u xiiso badan sida haatuf oo isaguna soo saara barnaamijyo aad u wanaagsan oo isaguna soo saara heesaha ugu dambeeyey oo qaab brofeshonaala u habeeya waxaan kugula talin lahaa in aad la xidhiidhid abwaano kale oo kaa caawiya qaabka heesaha lagu luuqeeyo ama qaabka ereyada loo sameeyo waa tal ahaantii anigu aan kuu soo jeedin lahaa muuqaalkan ha u arkin ina aan adiga ku cambaaraynayo laakiin soomaalidu waxay hore ugu mahmaaday qof wax ku siiya waad aragtaa laakiin qof wax kuu sheega ma aragtid anigu ayaan kuu sheegay ha u qaadan qalad ama ha noqon qof lagu fasiro hadalka aan ku idhi wax qalada waxaan idinkaga tegi doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu